من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa sharaf weyn maanta noo waan aad iyo aad ugu faraxsannahay kulankan halkan la isugu yimid kuna saabsan dad Soomaaliyeed oo muxuu ahay dhibaatada dalkan ka jirta u damqaday ayagoo maaragtay wax ciwad adduunyo aan ka rabin u damqaday dhibaatada dalkan ka jirta agoomaha faraha badan oo jira inay maaragtay u sameeyaan waxbarashadoodii ay kafaalo qaadaan raggaas iyaka ah waxaan leenahay baaraka allaahu fiikum wajazaakum allaahu khayran waddo wanaagsan aada furteen nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhaa وأجر من عمل بها إلى يوم الدين ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين ودونا أكسنكي بالله أجر كيودي إلى يوم القيامة أسعونيا ودح الله قد وحي أقد ديدنا سيدا سوكر أجر كيودي أيه هريان ودح نكي بالله بنا أساقنا سيدا سوكر abaalkeeda uu helaya jazihiisa oo xagga ciqaabta ah ilaa yawmiddiin marka walaalayaal guddiga oo agoontan soo aruuriyey iyo hooyooyinka carruurta dhalay iyo ilmahaba waxaan u soo jeedinaynaa in ay arrintaa ayada ah oo dadka walaalahooda oo muxsiniinta ah ugu soo talagaleen inaad ka faa'iidaysataan ayaan idiin soo jeedinaynaa waxaa loo kafaalo qaaday ardadaas ilaahay idankiis in muxuu ahayey ilaa ay gaaraan waxbarashadooda ay meel fiican ka gaaraan in bil walba laga bixiyo lacag ah $20 oo iskuul fiiya iyo wixii kaloo iskuulka la xiriira dadka iyaga ha ballan qaaday oo muxsiniinta ah waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam أنا وكافر الأيتام كهكذا في الجنة لبدا فرودو تاغي قفكي أقومت كفالة قادة جنة سيداسان هايو فرطان ديروا رسولك عليه الصلاة والسلام كان كوحيقانا وقفكي أقومت كفالة قادة وحان هاي كالرجينينا دادك كلا أو محسين دادك كلا أو صوماليات إني كود ديدان دادك إياك oo muxsiniinta oo khayrkaa bilaabay inay ku daydaan inay ajirkaas faraha badan ay ayaguna raadsadaan waa khidmad yar oo aad iyo aad u yar laakiin ajirkeedu aad iyo aad buu u weyn yahay hooyooyinka waxaan u soo jeedinayaa waalidiinta carruurtan waa agoon mar haddii waxbarashadoodii laydinka kafaalo qaaday inaad ku dadaashaan adinkaa laydinka raba iskuulka ku kormeertaan
muxuu ahay daba gashaan inay tageen iyo in kale muxuu ahay macallimiinta aad la xiriirtaan aad soo fiirisaan waxaa weeye tacliim bilaasha ayaa maaragtay ilaahay idiin fududeeyey waxaan u malaynayaa 550 arday ayaa la diray oo loo diray raggan wax soo kafaalo qaaday ayaga awoodoodiiya waxay noqdeen 720kan ayay noqotay marka 500 laydinka soo doortay 720kiina waxaa laydinka rabaa marka nasiibka wanaagsan ilaahay idin siiyey inaadna fursadiisa lumin ayaa laydinka rabaa aad ku dadaashaan ilmaha waxbarashadooda qofku hadduusan wax baran waa naaqus qiimihiisu waa naaqus adduun iyo aakhiraba waxtar uu leeyahay lama arko qofku hadduusan wax baran waxaa dalka horumariya oo dadka horumariya oo dhaqaalaha maaragta soo saara ama aakhiraba ku guulaysta dadka wax bartay ayaa qiimahaas iyaga iska leh marka waxaa laydinka rabaa inaad gaartaan haddii ilaahay yidhaahdo muxuu ahaaye darajo fiican inaad ilmihiinna gaarsiisaan ayaa laydinka rabaa qofka wax bartay isagaa is anfacaya waalidkiisuu anfacayaa dalkiisuu anfacayaa muxuu ahaaye waa noocaas marka waxaa laydinka rabaa fursaddaa inaynan marna aynaan lumin waxaa la rabaa dugsiyada qof waliba inay sheegto xaafadda ay degan tahay in laga qoro si iskuulka ugu dhow oo muxuu ahay u xiga loogu qoro waxaan rajaynaynaa mar labaad dadka dibadaha jira iyo kuwa gudaha joogaba inay ficilkaa wanaagsan oo raggaas ay noo horseedeen ay noo bilaabeen in lagu daydo oo muxuu ahaayey kumanyaal agoona ayaa maanta iska cadilan oo dalka dhexdiisa aan waxbarasho ku haysan oo nafaqa ku haysan muxuu ahaayey dhibkaas ayaa jira marka haddee ajir weynna ilaahay xaggeeda waa ku leedahay ummadduna waydiin ducaynaysaa inaad ka soo qayb gashaan ayaa laydinka rabaa ilaahay idankiis gudo iyo dabadba guddiga ragga ah iyo cid kasta oo arrintan muxuu ahay ay soo gaartayba waxaa laga rabaa meesha uu ku leeyahay dadaalkeeda inuu ka muujiyo intaas ayaan ku soo gabagabayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu